marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha ku dhaqan xaafadda Caaqliyare gudidooda iyo saliga booliska taliyahooda dhamaan bulshada ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan jecelahay anagoo ka nimi magaalada Burco waxaan jecelahay inaanu bal waxaan u soconay iyo tafaasiisheeda iyo mawduucan u socono iyo waxaan ka mid nahay in aanu warbixin kooban idinka siino ka bacdi aan idin soo gudbino mawduucan u soconay iyo hawsha aan halkan u nimi marka waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Cabdiraxmaan oo isaguna bal in kamida ka faahfaahin doono ku soo dhaw الحمد لله وبنستعين على أمور الدين والدنيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخان أدوم هذا علنا يا دوينها كل كان حافظ عقليره أيوه رأيو تليه هذا يو عيدا كقصقان صديقا با سلوك له وخان أدوم هذا علنا يا تذكر بالشدة هاي نسوا شيبي كل وحي أنو بحنين يوم موضوع عن ودني تقول إنه تاجري هكذا كل يسوع تاجي أنت كبعد كل أنا وحنا كنا مقالة برعو كل واحد شغل السنة إنه صوب وقرنا وأنه صور إنه صورنا إنه تدوينها كنا كان حافظ عقليره تاسو أنه أسقنا مشروع تكون تاي كل واحد كسقنا روينها استجمال تاسو كنت خلقنا أما كهذا الشيء ururkaasoo ku saxaalqo ama ka hadlay yani baahiyaha bulshada ama caafimaadka ugu horeeyo sidii wax looga sheegi lahaa ama looga taakulayn lahaa wixii aan ku dhaanana aanu sheegi lahayn kulay waxaan anagu wanaatay inaanu soo eegno annagoo jecelida kulay meelo badan oo sidoo kale ay ka jira gobolka Togdheer haddana aanu jeclaysan inaan ugu horeysiino xaafadda Caaqliyare maxaa yeelay kole bulshada ku dhaqan oo bulshada aad u firfircoon aad u wanaagsan runtii waxaan wax loo sheegi karaa oo wax ka qaadan karta ama wixii wayleen karta inta markaan ka soo gudbo kole yani hadafkayga ugu weyn wuxuu yahay inaanu la wadaagno yani barnaamij caafimaad ahaan kole dhakhaatiirta way nala socotaa wan akhyaar kale iyaduna aad ka faa'iido doontaa way nala socotaa marka insha Allah dhageysi wanaagsan bal markale waxaan ku soo dhaweynayaa Camaar Cabdirasaaq ku soo dhawow kulay maanta oo khamiisa bishu ay tahay 14 bishii labaad halkan waxa idinku martay ah ururka Sidigmaal gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada ee ururkaasi oo ka shaqeysa samafalka iyo wacyigelinta iyo waxyaabo kale oo fara badan oo ay nooga warrami doonaan dhalinyaradan inoo joogto aan jeclayn inaan ku sii dheeraado waxaanaynu u baahannahay dhammaan dadka ku nool xaafadan Caaqliyare inay mawduucan si qurux badan u dhugtaan oo ay u dhuuxaan kadib hadhow toole ay ku dhaqmaan maadaama aynu ognahay in wax badan ka faa'iido doono nuxurka mawduucu uu taagan yahayna waxa weeye kor u qaadida nadaafadda iyo ilaalinta caafimaadka oo waxaynu ognahay in haddii aynu maanta ka hortagno xanuunada oo aynu iska ilaalino inaynu hadhow toole ka baaqan doono cusbitaalada aynu tagi lahayn حكمة عربية واحد ترى الوقاية خير من العلاج استوينتو وحاي كوناك سنتهاي كهرتقو وحاو كوناك سنتهاي استوينتا مركا ما انتو حين إننا تسفي عن أنو إذن كشاغنو إذن كلا وداغنو إذن نقود دقيستان هبابكو وحابون إلا كهرتقو حنونا دا كلا قدسان هوا كفافان أما عنتدها كفافان أما بيها كفافان كدب ما انت مركا نوغانو سيدا اللوغو هرتقو دمانتين وحنو ديار قروبي دونا مركا aynu maxaa ku dhaqmi doonaa hababka la inoo sheego deetana way yaraan doonaan xanuunada maxaa ku dhacay in soo wajaha waxaynu ogeyn xilliyadii ina soo dhaafay inay jireen marar ay gobolkeenan ka dilaaceen xanuuno sidii xanuunkii shuban biyoodka muddada badan soconayay waxa xaqiiqo ah haddii aynu ka hortagi lahayn inaanu inagu dhicin ama haddii uu imaado wax badan aanu inaga asiibeen aynu runtii badbaadsan lahayn bulshadeena maanta se waxaynu doonaynaa inaynu wax badan ka diyaar garowno ka hortagno siina baranno hababka maxaan ku dhahdaayay looga hortago
kadibna aynu ku dhaqanno hadhow toolana innaga iyo bulshadeenna iyo ubadkeennaba ay faa'iido u lahaadaan waxaan kaloo jecelahay hooyooyinka iyo aabbayaashu in iyagu aad barnaamijka ay u dhegaystaan si ay carruurtooda ay maxaan ku dhahdaa ay uga faa'iideeyaan mawduucyada caafimaadka hadhow toolana ay maxaan ku dhahdaa ay u yaraato inaynu dhakhaatiir iyo goobo kale aynu tagno oo qof kastaaba markuu ogaado xanuunka waxa sababa kadib uu iska ilaaliyo ma jecel hadalka inaan ku dheeraado waxaan aad ugu mahad celinaya ciidanka bilayska oo runtii iyaga la'aantooda aanay waxba socoteen mar kastana heegan u ah difaacideenna iyo ilaalinta amnigeenna ugu horreyn waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaa mahad iska leh ilaahay oo inoo suurtageliyey inaynu halkan iskugu nimaadno sidaa waca mar labaadkana idinkaan idin mahad celinayaa maadaamaad sidaa wacan ii dhegaysanaysaan kolley anuu hadal badan meesha kuma lihi waxaan anoo afka urur ku hadlaya in yar waxaan idii sharxayaa ururka iyo wuxuu yahay mar labaadkana waxaan idii yar sharxayaa idii taataabanaya mawduuca maanta laga hadli doono kolley ururkan idla jooga ay hortiina ka muuqata waa ururka Sidigmaal ama ururka horumarinta bulshada afka iyo dhaqanka suuban ee Sidigmaal ururku kolley wuxuu ka kooban yahay waax badan oo dhalinyaro ku midoobeen dhalinyartaasi waxay qabataa hawlo badan hawlahaas kolley ka gayoon mayno haddaan isnahno wax kasta hawsha qabato sheeg laakiin waaxdan imika idla joogta ee waaxda arrimaha bulshada haddii aan hawlaheeda waxaad kaga yara taataabto waaxda arrimaha bulshadu kolley waa wax wacyigelin iyo samafal iyo waxyaabo badan qabata waxyaabaha ay soo qabatay waaxdu waxaa ka mid ah inay bulsho badan oo danyara soo caawisay inay wax bartay dad u baahan waxbarasho laakiin aan awoodin waxaa kaloo ay qabatay inay quudisay masaakiinta ama darbajiifta dariiqada ku tabaalaysan kolley haddaan isnahno tiriya waxaad wax inta qabatay ka gayoon mayno laakiin waxaan u gudagelayaa waaxdu hadafkay leedahay iyo waxay doonayso waaxdu hadafkeedu ugu weyn waxa weeye inay hesho bulsho midaysan iyo bulsho danyarta wax u qaban karta waaxdu waxay doonaysaa in dhalinyartu ay noqoto dhalinyar u jeesata bulshadooda danyarta waxna barta dadkooda aan awoodin maadaama iyagu wax u barteen intaas waaxda iyo arrimaheedaan kaga imanayaa barnaamijkan maanta aan idinku hor taagannahay kolley waxa weeye barnaamij ka hadlaya oo aan ku lafaguri doono qodobqodobna idinku sharaxi doono faa'iidada ay leedahay caafimaadku iyo nadaafad xumadu dhibta ka dhalatay iyo nadaafaddu la hagaajiya faa'iidadeeda weliba annagoo idiin raacinayna inaannu idiin fahansiino xanuunada ka dhalan kara nadaafad xumada kolley anugu sharaxaad badan sii geli maayo waxaana barnaamijka oo dhammaystiran sharxaya aan ku soo koobaya waqtiga kooban awgeed inamada iga dambeeya anu intaan ka baxay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم دمانبا بلشدة دقمة عاقل يرى ولا ليالات ياد بان idinku mahadnaqaynaa dhamaantiinba sida fiican aad noo soo ajiibteen isla markaana aad noo dhageysanaysaan madaxii maamul iyo xubnaba runtii barnaamijkaanu galabta idinku nimid dhalinyaradii ugu horeysay baa idin sharaxday waxaanu idinku nimid maanta barnaamij caafimaad oo aan idinku talagalnay inuu noqdo mid aanu idinku faa'iideynayno wixii aan u aragno inay idin anfacayaan dhakhaatiirta magaalada uu ahaa ee wuxuu baranayay waxaanu dareennay bulshada ku dhaqan ee deegaamada ka baxsan magaaladu inay yihiin bulsho aan odhan karno waa bulsho danyara isla markaana aan awoodi karaynin inay iska bixiyaan qarashaad badan oo kaga baxa cisbitaallada kala duwan sidaa daraaddeed intii ay cisbitaal ku tabaaloobi lahaayeen iyagoo xanuunsanaya waxaanu door bidnay inaannu ballo wadaagno habka iyo hanaanka marka hore ay uga hortegi karayaan inuu xanuun ku dhaco qodobka ugu horeeya aan idinla wadaagi doonaa wuxuu ku saabsan yahay xanuunada faafa markaynu leenahay xanuunada faafa waa xanuun awoodi karo qof inuu qof kale ka qaado micnaheedu tusaale ahaan qof guriga ka mida baa xanuunsanaya qofkaasi xanuun buu qabaa uu u gudbin karo qof kale haddaba waxaa jira xanuuno badan oo la isqaadsiiyo ama la kala qaado xanuunadaasi waxay ku faafaan siyaabo kala duwan waxaanan bal in yar maanta soo qaadan doonaa inta ugu caansan ee aynu naqaano xanuunno ay bulshadu kala qaadi karayso siyaabaha loo kala qaado iyo siyaabaha looga hortago intaba tusaale ahaan xanuunada qaarkood waxaa lagu kala qaadaa inuu qofku taabto qofkii xanuunka qabay waxaa jira xanuunada aynu naqaano tusaale ahaan beer xanuunka
oo ka mid ah xanuunada maanta bulshadeenna inta ugu badani marka goobaha caafimaadka ay yimaadaan ay ka cawdaan. xanuunkaasi wuxuu ka mid yahay xanuunada lagu kala qaado qofkii inuu qof xanuunkii qabo uu taabto ama xidhiidh la sameeyo. waxaa ka mid ah tusaale ahaan xanuunka jadeecada loo yaqaano oo laga yaabo inuu hayo in badan oo carruura oo guryaheenna joogta, taasina ay suurtagal tahay carruurtaasi inay u gudbiso carruurtii iyo dadkii kale ee waaweynaa ee guriga kula noolaaba. waxaa jira xanuunno kale oo lagu kala qaado hawada, tusaale ahaan xanuunka aynu naqaano qaaxada ama TB-da wuxuu ka mid yahay xanuunada qofku uu ka qaadi karayo haddii qof qabaa guriga uu kula nool yahay. waxaa ka mid oo aad iyo aad aynu u sahashanaa xanuunka durayga ama hargabka oo ka mid ah xanuunada qofku hadduu kugu qufaco, hadduu kugu neefsado, hadduu kugu hundhiso intaba uu awoodi karayo jeermiskii xanuunka sababayay inuu kuu soo gudbo. waxaa jira xanuunno laga qaado biyaha wasakhaysan iyo cuntada wasakhaysan oo tusaale ahaan haddii dadka deegaanka joogaa ayna heli karaynin biyo si fiican loo nadiifiyey ay suurtagal tahay inay ka qaadaan. tusaale ahaan xanuunka aynu naqaano typhoida oo laga yaabo inuu in badan oo dadka waaweyn ka mida madax xanuun ku hayo isla markaana har iyo habeenba ay ka ladila yihiin. wuxuu ka mid yahay xanuunada lagu kala qaado inuu qofkaasi cabo biyo aan nadiif ahayn ama inuu qofkaasi cuno cunto aan nadiif ahayn ama si fiican aan loo karkarin. waxaa tusaale ahaan ka mida oo aynu naqaanaa biyaha inay ka dhashaan xanuunka duumada ama kaneecada aynu naqaano oo haddii ay meesha biyo wasakhaysan ay fadhiyaan suurtagal ay tahay inay kaneeca ka dhalato dabeetana ay dadkii deegaanka ku noolaa oo dhan ay xanuunkii ka qaadi karayaan. haddaba waxaynu isweydiinaynaa haddii ay xanuunadu siyaabaha kala duwan ay u faafi karaan isla markaana siyaabaha kala duwan qofkii u qaadi karayo sidee baynu uga hortegi karaynaa ama aynu iskaga ilaalin karaynaa. dariiqada koowaad ee aynu xanuun uga hortegi karaynaa waxa weeye markaynu ogaano xanuunkani tusaale ahaan jadeecaa qof gurigii jooga ku dhacday inaynu isku dayno qofka guriga jooga inaynu goobta caafimaad ee ugu dhowaynu geyno. taasi waxay keenaysaa qofkii xanuunkan qabay in laynoo daaweeyo. kow waxay keenaysaa qofkii xanuunka qabay inuu intuu xanuunkii uu ka bogsanayo haddii xanuun uu jiifay uu yahay inuu cisbitaalka ama xanaanada idinku dhow jiifo qofkii oo ladana gurigii uu ku soo noqdo. waxay suurto gelinaysaa qofkaasi daryeelkii caafimaad ee inooga baahnaa inuu helo. sidaa daraaddeed tallaabada koowaad ee aynu qaadayno haddii aynu dareenno qof gurigaynala joogaa inuu xanuunkii uu xanuun hayo inaynu goobta caafimaad geyno. dhibaatooyinkayna haysta waxaa ka mid ah waxaynu sahashanaayo aynu aad iyo aad u fudaydsanaa oo aynu nidhaahnaa qofkaa ha la baxnaaniyo dabeetana waxaa suurtagal noqotaba qofkii intaynu lahayn ha la baxnaaniyo inuu dad badan oo gurigii joogana xanuunkii qaadsiiyo isagana xaaladiisii ay ka sii xumaato ay ka sii darto. sidaa daraaddeed halkii aynu guriga ku baxnaanin lahayn oo qofkeenni goobta caafimaad inoo jiifo dhakhaatiirtii iyo neeraskii iyo daaweynaya aynu helo dadkii gurigaynala joogayna ay ka nabad galaan inuu xanuunu gudbiyo. sidaa daraaddeed aynu isku dayno goobaha caafimaad inaynu ku xidhnaanno aynu isku dayno inaynu markaynu dareenno qof inaga mid inuu xanuunsanayo aad iyo aad inaynu la soconno. waxaa kale oo jira tusaale ahaan jadeecadu waxay ka mid tahay xanuunada carruurta ku dhacee dilaaga ah suurtagalla ay tahay ilmahaasi inuu u dhinto ama ay naafayso. ilmaheenna haddii jadeeca ay ku dhacdo waxaa lagu sameeyaa waxaa la ysku dayaa isaga iyo carruurtii kale in la kala xakameeyo. karantiimadu qayb waxay ka qaadataa in qofkii xanuunkii aanu gudin. markayn leenahay karantiimo micnaheedu ma aha qofkii baynu iska fogaynaynaa, waana dariiqo aynu kaga hortegi karayno xanuunkii inuu dadka intiisii kala qaadsiiyo. dariiqada labaad waxa weeye jira dariiqooyin biyihiinna aad u nadiifsan kartaan idinkoon cid kale gacan ka sugin. tusaale ahaan biyaha marka la soo dhaamiyo in la karkariyo oo kale. karkarinta biyaha la karkarinaya waxay ka dilaysaa wixii jeermis. tusaale ahaan haddii ay dhaqaalahaan u suurto gelayso biyo sifeeye oo kale inaad isticmaashaan oo aad iskaga ridaan biyihii. dariiqada saddexaad ee weliba carruurteenna aadka u anfacaysaa waxa weeye inaynu carruurteenna tallaallo xilliyada ay ina soo maraan tallaalladu. bulshoodeennu waxay u baahan tahay inay tallaasho carruurteeda. waxaa laynaga dhaadhiciyey oo aragti khaldana tallaalku carruurtuu dilaa waa aragti aanay waxba ka jirin looguna tala galay carruurteennu inay u dhintaan xanuunno ay fududayd haddii laga tallaalo inaynu ka hortegi kari lahayn. waxa ugu qaalisan ee qof bilaadana uu helaa waa caafimaadka. haddii uu qofka caafimaad ka xumaado wax allaaliya wax hagaagaya ma jirto. markaan u imaado mawduucayga oo ah cudurrada laga qaado biyaha
wasakhaysan iyo cuntada wasakhaysan run ahaantii waxaa dhakhaatiirta buuxiyey meel kasta ha ahaadaan ama mid barefada ha ahaadaan ama ha ahaadaan dhakhtarka weyne burco ama kuwa gobollada kale ha ahaadaan waxa weeye waa cudurrada laga qaado biyaha wasakhaysan iyo cuntada wasakhaysan run ahaantii wadamada galbeedka Yurubta marka xaqa ka hadlayno cidba ma taqaano cudurradan ka hadlayno ee laga qaado cuntooyinka iyo biyaha waayo taayagu horay uga hadleen horay isaga nidaamiyeen biyahooda iyo cuntooyinkooda oo waxa koobaad ay qof walba ka shaqeeyaan siday u hagaajin lahaayeen haddaba mawduuca aanu gudagalo waxaan doonayaa inaan isaga jawaabno 6 su'aalood su'aasha koowaad waxay noqonaysaa waa kuwee biyaha iyo cuntada wasakhaysan su'aasha labaad maxaa wasakhayn kara biyaha iyo cuntada su'aasha saddexaad sidee bay cudurrada u dhashaan biyaha wasakhaysan sidee bay cudurrada uga dhashaan biyaha wasakhaysan su'aasha afraad waa kee cudurrada laga qaado biyaha wasakhaysan sidoo kale sidee baa looga hortagi karaa cudurrada iyo biyaha wasakhaysan ugu horreyn waxaan ka bilaabayaa waa kuwee biyaha iyo cuntada wasakhaysan haddaba ma tahay cunto kasta iyo biyo kasta qaar laga qaadayo cudurrada su'aashu waa maya biyo kasta iyo cunto kasta lagama qaadayo cudurrada laakiin waxa laga qaadayaa biyaha wasakhaysan iyo cuntada wasakhaysan haddaba biyaha wasakhaysan maxaa wasakheeyey biyaheena wasakhaysan biyaha qasabadu ma aha biyo wasakhaysan biyaha maaxda iyo shirkadaha ee caagadaysan ee mooreysan ma aha sidoo kale biyo wasakhaysan waa biyaha fadhiya ee ku jira barakadaha sidiina kii horeeyay xasan inuu sheegay markay dantu inuu kalafto biyo kale burco waa meesha ugu biyaha badan gobolada Soomaaliland laakiin dantu waxa ugu kalafaysaa markaad biyo weydid biyihii meel ku jiray inta soo qaadatid adigoona hagaajin iska nadaafin aanu cilmi u garanay inaad biyo cabtid haddaba biyahaas waxaan jecelahay in koow tahay biyo laga qaado biyaha waxaan u arkaynaa inagu waan soo qaadanaynaa biyaha waxaan arkaynaa biyo nadiif ما ها بيو بيو نظيف لكن بيو واحد كل شيء واحد يراه ميكرو أورجانيزم عمل يراه المقابتي أو يرير أو يندهنو أنا أركي كرين كواس إنكو حوارك إن بيو نظيف وأنا كوا كينا قف كينو صباح عنو هذا هو حندوني إن نودع دعوة كنت وكوا عذر الله يقعدوا بيه وحكوكا عذر كلا يراهضو شو بنك أما في قلادو يقول يراهضو كلا يراه سيدو كلا وحكم إذا عذر كلا يراهضو تيفوردا sidoo kale waxa kamid ah cudurka la yiraahdo xundur dhigta sidoo kale waxa kamid ah cudurka la yiraahdo malaariyada sidoo kale waxa kamid ah cudurka la yiraahdo hepatitis-ka ama beer xanuunka dhammaan cuduradaas oo dhan waa cudurada ay la ildaran yihiin dadkeena jooga magaalada ee waliba dadka dhakhaatiirta lagu yimaado ruuxaantii waxaan kamid ahaa si inankii horno kamid ahaa dadkii u shaqeynayay dadkii xanuunsanayay ee shubanku uu soo riday sanadkii dhawid ruuxaantii waxaan daraasad ku sameeyay intee qof baa dhintay imisa waayeel iyo dhalinyaro marka loo qaybiyo dad waaweyn iyo dad yar waxay 200 kor u dhaafeen dadkii ku geeriyooday shubankii Allah oo naxariistay sanad ku dhawaad qarxay wax kale kama qaadin meel kale kama keenin ee waxa ka qaadeen oo ka imaadeen biyaha wasakhaysan iyo cuntada wasakhaysan hadaba cuntada iyo biyaha maxaa wasakhayn kara cuntada waxa wasakhayn kara hooyadii ilmaha ya dhashay suuliga ilmiheera geenaysa ilmiheera suuligay xaashadii kaga soo hagaajinaysa ama saxaradii kaga soo hagaajinaysa kadu hooyadii iyadoo aan si fiican u faraxalan ayay ku soo noqonaysaa cuntadii haga taalay cuntadii bay reerkii u hagaajinaysaa marka waxa weeye waxaynu uga hortagi karnaa inagoo qashinka iska ururna qashimada dhammaan iska wada ururna meel u sameeyna goob aynu ku ururno qashimada oonaya marka xanuunka waxaynu uga hortagaynaa inagoo qashinkii iska diyaar u noqono in qashinkii dhammaantiin aan wada ururno soo amba bixiso u yeedhay dhalinyaradan qaadaa iyo qiimaha badan leh annagu waxaan nahay xaafadda IDB caqliyare markaan ka hadlaayo warbixin aan ka bixinayo xaafadda waa nala aragteen waana nala ogtihiin waa xaafad cusub waa IDB cusub waa IDB qatanaha nooc kastaaba ku badan yahay waa IDB abaari keentaya iminkaydu waxaa ka hadasheen qaabkii iyo maamulkii iyo ujeeddadii caafimaadka waxaanu idiin dhiibanaynaa su'aal codsiya taasoo ka mid ah iminka caafimaadkaana siiseen ee aan noogu baaqdeen ee aad sharaxaadiisa nagu wacdi geliseen in idinkuna wixii aad nooga qaban kartaan aad nooga qabataan in nala siiyo haamii qashinka in nala siiyo suuliyo taya leh
oo aanu ku dayactiro dadka nadaafadiisa haddii aan labadaa la helin ma suurto gelayso caafimaadka ilaalintiisu هذا الله سيبا دين مايو انت سأني بكل عفيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته